أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أدونكن هي قيمها وكلية الله سبحانه وتعالى أكتيس أدونكن ما أنت تشوقنا فواحد بني آدم قد من متزاحم كوكوية وواحد ضبيس كهيو الله مايو لك لبوبيو لك للريحانيو أدونكن ما أنت تشوقا وكان dadka intiisa badani hadduu soo galo uu farxayo xoolo ku soo galaan ama uu qofku kharash helo yafrax hadduu waayo uu cadhoonayo dudayo ama uu qadarka maagayo adduunkan maanta joogay ah mid qofku markuu waayo wax ku colaadinayo ku dagaalamayo helistiisa uu cid ku xidhiidhinayo ku soo dhawaynayo qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wax walba siduu u qiimeeyey intuu adduunkani qiimo agtiisa alle ka leeyahay subxaanahu wa tacaala intee ayaa loo baahan yahay qofka muslimkii inuu kala xidhiidho dunidatan aynu markaasi ku kor noolahay waa dhaldhalaal yar oo dhammaanaya إلهي بقول لي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وحنكي لي بقى إلهي لي دولك وحا كرسارا أو زينة وحا لغو قرحية محال لغو قرحية لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وحان أدى الدلالية بقى إلهي لي أدونك كد إن أندتك كو اتحامه inaan eego dadka kan iyo mowqifka ay adduunka iska taagaan dabeetana waxaan ka dhigi doonaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala meel biriya oo la tirtiro adduunku wuu yaryi waa qaliil baa ilaahay qilladu xaggay kaga jirtaa yacni markaad leedahay shay wuu yar yahay waa in shay kaloo la dhinac dhigaa u jiro maxaa la dhinac dhigayaa lagu qiimaynayaa waxa la dhinac dhigayaa waxa ay dadku ka dooranayaan bal tu'thiruna alxayata addunya walaakhiratu khayrun wa abqa waxa la dhinac dhigayaa waa aakhiro adduunka noloshiisa dooranaysaan baa ilaahay leeyahay bal tuhibbuna alcaajila wa tadharuna alaakhirah adduunka waxa la dhinac dhigaya marka koowaad ay yaraantiisa lagu tilmaamaya waa aakhiro waayo labada inaad mid doorato weeyaan inuu qofku aakhiro iyo naciimkeeda doorto وأدونكن واقع دار ابتلاء نيتهاي يينو أدونك بدبدكيسا يكو راحيسيكيسا جعلايستو أو آخره إلا أبو أنو اسكو مشغولين والله وضع مد إذن أدونك وا قليل وحو قليل كويهاي جنة وحي الله بضن جنة إلهي وحلية والنعمة ربضن وبيرو وجنوين ووبيال وكل شيء لغو نعيميستو وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحول الله بني آدم كوبا هذا بويت الله إذا أدون كو يريي وحو يريي مركا آخر الله أيضا سيدا أوجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وحليه ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع أدونكم آخر مركا الله دين عدي قبل النبي صلوات الله والسلام عليه وحول لمد يهي نم فرت بيا قليي بضا هداد فرت قليسو حاكاسو راعية يعني بضا بيها هداد فرت قليسو انتين لك بكسو راعي
يعني gacantaadu inay qoydo uma ku soo raacaya intee lag baa haraysa badiyo dhan baa haraysa haddii adduunyo aakhira la isdhinac dhigo min hayth al-kasra tira badni marka laga eegayo haddii la isdhinac dhigo waxay u dhigmaan baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala in ay tahay waxa yar waxa ka soo raacaya aakhira nimcadeeduna inay tahay tu tira badan sida awgeed ayaa waxa leenahay adduunku uu yariyay marka loo eego aakhira nimcadeeda adduunku baan leenahay waa faani uu dhamaanaya aakhira se way waaraysaa oo adduunka iyo waxa nimco yaallo dhan waa laba miduun inaad adigu zuusho oo ka tagtid oo geeriyo ku dayn weydo iyo inuu isagu kaa tago intaad ururiso in aafa kale ku dhacdo dagaal dhaco balaayo kala dhacdo mushkilada dhacdo khasaare dhaco markabkaad raratay degto dayradaad wax saartay degto si kale inaad u khasaarto idan inuu isagu kaa tago iyo inaad adigu ka tagto labada miduun baad ku jirtaa ama aakhiro ukuluha daa'im wa dhilluha baylahay waxa lagu cunayaa waa daa'im isma bedelayso hooskeed iyo hadhkeed iyo nimcadeed oo dhan waa joogto aafa kuma dhacayso waa daaru salaam daarta nabadgelyada weeyaan ilaahay baa wuxuu leeyahay ma cindakum yanfad waxa agtiina yaallo dhan waa dhamaanaya baa ilaahay leeyahay wama cinda allahi baaq ilaahay si agtiisa waxa yaala ma dhamaadaan bal adduunka waad ururinaysaa laakiin intaad intifaacsanaysaa baaya waa laga yaabaa inaad malaayiin soo ururiso laakiin adiga maxaa kuu arsaaqi aad ka leeday waxaad aakhira isaga sii horumarisay waxaad cuntay waxaad huwatay inahaas baad adigu ku leeday inta kale dad kale uma dhaxlaya ama u hadhaya adiga risqaaga kama mid aha inta kale dad kale waad soo kasbaday oo waad soo ururisuun laakiin risqigaagii ma aha cid kale u hadhaysa sida daraaddeed waabay kula degdeg badantay sida ay ku dhaafayso aakhira marka la tagaba ilaahay wuxuu leeyahay ma labisu ghayra saaca marka la weydiiyo waxaad moodaa dunidii la sheegayba saacad in laagina la soo joogin saacadintay laag waa waqti aad u yar yani waxa la tilmaamayaa sida ay u dhamaan doonto kaannahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha aakhira markay soo taagaan baa ilaahay leeyahay qiyaamuhu dhaco waxay u ekaanayaan inaanay gelin hore ama gelin dambe wixii ay dunida soo joogeen oo dhameeyay intaas yaraanteedii iyo sida zamankeedu u degdegay qofka maanta 90 jira way la yartay intii uu soo maray maalmuun bay la tahay dhadhan badan ma leh qofka 20 soo jirayna maalmuun bay la tahay qofka 40 joogana maalmuun bay la tahay idan waa wax yar qofna ismale waad ka dheregtay ama in wax laga qaadaba ka qaada sida daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka in badan ku tilmaamaya اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلهي وحط الماما يا سبحانه وتعالى أدون كلا تشوقه واسكا اللعب يلهوي بالليل دال عبورات أما اللهوي ددوا وينيكم داشان وحوغا دلدلاله إن فانا إن أرورسيا إيا عبوريا أولاديا وحلا النوع وحودا مركا لا اسكو دربا إلى هيد محلمدي كمثل غيث أعجب الكفار نبات محلمدي هبال ليدي روب داي وبيرليدا فرحت قليي روبكو مركو دوه دوغو صوبحو انتا إلا قو جوغا يعني بالله با انتانو جوغين بالضبايل باكو دعضا وبيه با يرادا oo dib u engaga oo dhulkii quruxda badanaa dhamaantii wuxuu noqdaa maxay meel cidlo lama dagaabo wakaada saadaradeed baa ilaahay inma mathalu alhayati dunya kama in anzalnahu min as-samaa'i fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah adunka joogtaan oo dhan marka la isku daro baa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu la mid yahay bihi cirka ka soo daay ee dhulka ku darsamay ee waxa dadku cunaa ka soo baxeen ee dabeetana markiiba intuu engegay xaabada iyo xashashka iyo xashiiska noqday
aayaad tiro badan baa ilaahay masaladaa ku tilmaamaya. واضرب مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أما إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض